فدرالك الصومالي محمد حسين روبله markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka Jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo uu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 22 Juulaay 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed 2 Cabdiwahaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka aadan cadde ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay wabillahi tawfiiq